السلام عليكم. inkastoo la isku dayay in taariikhda la madaluufiyo oo laga dhigo in Cusmaaniyiintu ay damceen dhulka Maqrib oo labadooduba ay isku islaam u ahaayeen, haddana waaqaca iyo waayaha ayaa xaqiijiyay in iyaga oo kala magac iyo dawlado ay iska barbar dagaalameen. Marookana ay 4 saac ku soo afmeertay boqortooyadii adduunka kaga qaylisiisay, Andalus dumisay, aqoontii muslimiintana waxna gubtay waxna boobtay, adduunka kalena in la gumaysto horseeday ee Portugal. Hadda waa dagaal 4 saacadood oo kaliya soconayay, dagaalkii Waadi al-Makhazin ee loo bixiyay markii dambe Bederkii labaad, sidoo kalena loo yaqaano dagaalkii 3 boqor, iyo sida ay Morocco warka Portugal 4 saac ugu soo gabagabaysay ee ay ugu noqotay masiibadii ugu weyneyd ee ciidannimo ee ku dhacday Portugiiska, ayaynu muuqaalkan isku eegaynaa. Ku soo dhawaada. 1490 ayay ku dhacday gacanta Spain iyo Portugal, dawladahaas hadda loo kala yaqaano caasimadii u dambeysay ee dawladda Islaamka ahayd ee Andalus. dadkii muslimiinta ahaa ee ku dhaqnaana waxa ay u qaybsameen wax sii nagaada iyo wax ka haajira. kuwii sii nagaaday maxkamadihii dambi baadhista waynu dhowr jeer barnaamijyo ka diyaarinay ayaa la tegay oo xasuuqay, ee kuwii ugu badnaa ee soo yaacay deegaankii ugu badnaa ee ay ku soo qaxeen waxa uu ahaa Maqrib ama dalka hadda loo yaqaano Morocco. dadkii muslimiinta ahaa ee aan dhulka kala xigtaysanayna si fudud ayay isula qabsadeen oo ay deegaankii u wada yeesheen, balse Spain iyo Portugiis ayaan ka hadhin oo xataa Morocco kaga daba yimi oo inay kula dagaalamaan damacay. dhulkaas Morocco laftarkiisana ayba qabsadaan. waxay waayahaas oo ahaa horraantii 1500-aadkii ku soo aaday markii ay aadka u xoogaysatay imbraadoriyadda Cusmaaniyaddu. deegaankaas waqooyiga Afrikana waxaa markaas ka jiray dawlado aan xooganayn oo haddii lagu soo duulo markiiba la qabsan karayay, waxaana ay ahaayeen dhowr dawladood oo yaryar oo aan awood ay wax iskaga difaacaan lahayn, iyaguna aan isku uursamayn. markay Portugiisku soo duuleenna waxay dawladahaas iyo dadkii aaggaasi u qaybsameen wax iska maslaxa Portugiiska oo inay cashuur sanadlaa iska bixiyaan isu diyaariya, iyo wax kaaga dhawaada Cusmaaniyiinta oo inay dalka Islaamka la difaacaan ka dalbada. labadaas awoodood ee ay la kala safteen ama ay ka kala ag dhawaadeen dadkii dhulkaas deganaa ee Cusmaaniyadda iyo Portugiiska waxay ahaayeen laba awoodood oo markaas xoogooda iyo kor u kacoodu halkiisii ugu sarreysay marayay, mid walibana ay doonaysay inay adduunka isku baahiso. deegaankaas Maqribna waxaa markaas ku baahay qalaalaasaha oo dawladdii ka taagneyd ayaa wax macnaa yeelan weyday. duulaanadii Portugiiska ee istaba joogga ahaana u adkaysan weyday, waxay ku qasbanaadeen inay aqbalaan xukunka Portugiiska iyo inay boqortooyadaas ka mid noqdaan, cashuur sanadlaana iska siiyaan. balse dadkii waxgaradka ahaa iyo oday dhaqameedyadii qabiilada ayaa ku qanci waayay tallaabadaas oo la marsiin waayay, dagaalka iyo dhimashadana ka doorbiday. waxaana markaa aaggaas joogay nin la odhan jiray Maxamed ibnu Cabdiraxmaan al-Xasani oo ahaa aalubeyd Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam ku abtirsada. ninkaas ayayna xilkii madaxnimo u cimaamadeen oo ay ku daba fayleen dalka, dadka iyo diintana inuu difaaco ay ka dalbadeen. waxaana sidaas ku asaasantay dawlad ugu loo bixiyay Sacdiya, maadaama ay dadku ku farxeen inuu nin diinta aqoon u leh aalubeyd iyaguna ay iska soo doorteen xukunka u hayo oo ay weliba ku qanacsan yihiin. dawladdiisa Sacdiyaduna dawladdii maqaarsaarka ahayd ee Portugiiska isu dhiibaysay ayay meesha ka saartay. deegaanadii uu Portugiisku qabsadayna dib ayay ula soo noqdeen. Cusmaaniyiintii joogtay Jazaa'irna heshiisyo ayay la galeen, sidaas ayayna dalkii ku badbaadiyeen. 1974 ayuu dhintay Suldaankii Maxamed, waxaana xilka loo cimaamaday wiilkiisii Maxamed Mutawakkil ama Maxamedkii labaad. balse wiilkaas Mutawakkil waxa uu qaatay siyaasad inuu ka ag dhawaado Portugiiska oo Cusmaaniyadda ka fogaado. 3 adeer oo uu lahaa ayayna taasi cajabin weyday, dadkiina iyaga ayay ku raaceen, waxaana ay heshiis la galeen Cusmaaniyiintii. adeeradii iyo qabiiladii la jiray iyaga ayaa xukunkii dalka dib u qabsaday oo ninkaas ka qaaday. markii uu Mutawakkil arkay in Farabaas lagu hayana waxa uu u cararay dhanka Portugiiska oo uu magan galay. adeerkii Cabdilmalik ayaana noqday xaakinka dawladda Sacdiyada, waxaana uu xilka dalka ku qabtay sifo inuu taabicu yahay Cusmaaniyadda. khudbadda Jimcahana waxaa masaajidada uu amray in lagu qabto magaca Suldaankii Cusmaaniga ahaa ee waagaas ee muraadkii saddexaad. qaab siyaasadeedkii iyo tababarka ciidankiisina waxa uu ka dhigay mid Cusmaani oo saraakiil Cusmaaniyiin ayaa loo keenay oo u tababaray ciidankiisa. waxaa sidoo kale ay qarameeyeen dadkii Andalus ka soo yaacay oo ay ciidan ka dhigeen iyagana, iyo weliba qabiiladii Amaasiiqda ee aaggaas kaaga dhowaa. inta ay Cabdilmalik iyo Cusmaaniyaddu dhankan ka diyaargaroobayeen, waxaa xilkii Portugiiska qabtay boqor la yidhaahdo Sebastian. isagoo 3 jira ayuu xukunka dhexaltooyo ku qabtay. markii uu yaro koray ee uu kaalingalka noqdayna, la taliyayaashiisii ayaa u soo bandhigay inuu ku duulo Morocco oo uu warkooda soo gebagabeeyo, maadaama haddii ay baddaas u dhexaysa ku awoodaystaan ay ganacsiga Portugiiska khalkhal gelinayaan. balse boqorkaas waxaa hakiyey tirada ciidanka oo yarayd, arrinkaasna wuu ka maagay. markii uu Mutawakkilkii u firdhaday dhankiisu gaadhay ee uu magangelyada weydiistayna, waxa uu akhirkii go'aansaday inuu dagaalkaas galo, waxaana dagaalkaas taageeray
taageeray dadkii maamusleyda ahaa ee taliska boqortooyada Boortaqiiska qaybta ka ahaa iyo burjawaasiyiintii ganacsatada ahaa ee dhaqaalahooda u turanayay. xilligaasna quwadda badda ee caalamiga ahi waxay ahayd Boortaqiiska oo Brazil ilaa Hindiya. xeebaha asaasiga ee caalamka iyaga ayaa haystay. halkan ayayna ka bilaabmaysaa qisada dagaalkaas la yaab kale ee Waadi al-Makhazin. waxaa boqorkii Sebastian soo ururiyay ciidan lagu qiyaaso 150,000 oo askari, waxaana ciidankaas ka mid ahaa kuwa yow ka yimid Talyaaniga iyo Jarmalka, halka ciidanka Maqribna tiradiisu ay ahayd 40,000 oo dagaalyahan oo Andalusiyiin, Maqribiyiin, Amaziiq iyo Cusmaaniyiin isugu jira. waxaana uu saldhig ka dhigtay deegaanka loo yaqaano Al-Qasr al-Kabiir, halka Sebastian uu ciidankiisii dejiyay xeebta si uu badda iyo gurmadka iyo loojistiga ciidanka uga agdhowaado. markaasuu Cabdilmalik ku qoray dhambaal ahaa ku adkaysiga dagaalkan in aad gashaa waxa ay ka muuqataa sida aad dhulka muslimiinta u timi ee aad dagaalka u soo aaday, ee haddii aad xeebtaas deganaato intaan ku soo gaadhayo waxaad tahay nasraani dhab ah oo geesi ah. haddii aad dhulka gudaha u soo gasho oo aad maatada waxyeelaysana waxaad tahay ay dhalay. dhambaalkaasi markii uu soo gaadhay Sebastian wuu ka xanaaqay, waxaana uu go'aansaday inuu deegaankaas Qasrul Kabiir ugu tagaba Cabdilmalik waxaanu soo qoray. inkastoo ay taliyayaashiisii uga digeen, haddana kama aanu waaban ee uu aaday. 1578 ayuu boqorkii Cabdilmalik isaga oo faraskiisa saaran u khudbadeeyay ciidankiisii isagoo weliba aad u xanuunsanaya. labada garab ee ciidankana waxa uu ka dhigay min 10,000 oo askari, dhexdana waxa uu dhigay ciidankii Andalusiyiinta ahaa ee ciilka u qabay Boortaqiiska. sidaas ayuu dagaal qalaad oo madaafiic ku bilaabmay meeshii kaga dhacay. hogaamiyihii ciidankii Boortaqiiskana madfac ayaa ku habsaday gebigiisiiba markii uu dagaalkii bilaabmay. dagaal qalaad oo dhacay oo socday 4 saacadood oo keliyana waxa uu ku soo dhamaaday jab dhammaystiran oo dhan walba ah oo ciidankii Boortaqiiska ku habsaday. dhammaan maamusleydii boqorka ka agdhoweyd dagaalka ayay ku dhinteen. 15,000 maxaabiis ahaan ayaa loo qabtay. kaliya 100 askari oo doon ku baxsaday ayaana ka badbaaday. maydkii boqorkii Sebastian lama helin, laakiin wuu dhintay. boqorkii Cabdilmalikna si dabiici ah ayuu intii uu dagaalku socday u dhintay, laakiin waa la qariyay dhimashadiisa ilaa guusha la isku hubsanayay. boqorkii xilka laga qaaday ee mutawakkilna isagoo isku dayayay inuu firdhado ayuu badda ku qarqoomay. dhimashada 3daas boqor intii uu dagaalkaasi socday ayaana loogu bixiyay dagaalkii 3da boqor. dowladdii Saacdiyaduna sidaas ayay kusii xoogaysatay. koonfurta Afrikadii kasoo xigtayna hoos ayay ugu soo daadigeen. dagaalkaasi Waadi al-Makhazin dabadiina Burtuqaal xaalad dhaqaale oo laga xumaado ayay gashay. kadibna waxaa ku soo duulay boqorkii Spain oo qabsadayba. sidaas ayuu dagaalkaas Waadi al-Makhazin ku noqday dhacdadii soo afmeertay maamuuskii boqortooyadii weyneed ee Boortaqiiska ee waayahaas awoodda Yurub caalamka u siday. Morocco ay 4 saacadood warkii Burtuqaal ugu soo gabagabaysay. xataa waxa uu gaadhay heer ay Yuhuudda Morocco ku dhaqani samaysteen maalin ay sanad kasta u dabaaldegaan jabka Boortaqiiskaas ku habsaday, maadaama sidii muslimiinta Andalus loogu dhibay iyagaba loo dhibay. jabka Sebastian ay warkayeen mucjiso rabbaaniya oo lagu badbaadinayay iyaga. waa taas qisada dagaalkii 3da boqor ee Waadi al-Makhazin iyo dagaalkii boqortooyadii Boortaqiiska ay Morocco 4 saac ugu soo gabagabaysay. wasalaamu calaykum.